halkan daawade waa halku dhig news haddii aad nagu cusub tahay ama aad nagu soo biirtay fadlan daawade subscribe channelkan. madaxweyne dani iyo hogaamiyaha ahlusunna macalin maxamuud ayaa ku heshiiyey in la fashiliyo doorashada filla Soomaaliya ka wada dowlad goboleedka Galmudug. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo hogaamiyaha ahlusunna macalin maxamuud Sheekh Xasan Faarax oo kulan qarsoodi ah ku yeeshay Garowe caasimada Puntland ayaa ku heshiiyey in la fashiliyo doorashada qorsheysan in laga qabto dowlad goboleedka Galmudug oo ay dabada ka riixaysa xukuumadda federaalka Soomaaliya. sida ila xoogaala waxa qiijiyeen warbaahinta macalin maxamuud oo toddobaadkan safar aan la shaacin ku yimid Garowe ayaa xarunta madaxtooyada kulan qarsoodi ah kula yeeshay madaxweynaha Puntland waxaana kulankaasi looga wada hadlay laba qodob oo kala ah in la fashiliyo qabsoomidda doorashada Galmudug ee filla Soomaaliya wado iyo in la sameeyo isbahaysi ka dhan ah Kheyre iyo Farmaajo oo ku wajahan doorashada heer federaal ee 2020-2021. kulanka labada mas'uul oo saacado badan qaatay ayaa lagu gorfeeyay tallaabooyinka ay tahay in la qaado si loo fashiliyo doorashada xukuumadda federaalka ka wada Galmudug waxaana markii dambe ku heshiiyeen in ahlusunna qaadacdo doorashada Galmudug kuna baaqaan in dadka reer Galmudug loo madax banaaneeyo masiirkooda. dhinaca kale madaxweyne Dani ayaa macalin maxamuud ku daray isbahaysi siyaasadeed oo ka dhan ah Farmaajo iyo Kheyre kaasoo ka kooban madasha xisbiga Muqdisho, Puntland, Jubbaland iyo ahlusunna kuna jihaysan doorashada 2020-2021. isbahaysiga doorashada 2020-2021 ayaa waxaa gadaal ka taagan siyaasiga weyn Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo maalmo ka hor Garowe ka dhoofay kadib markii uu madaxweyne Dani ku qanciyay in la aasaasay isbahaysi siyaasadeed oo ku saleysan doorashada